وعنو wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada warka xulka wararka oo aad maanta ku daawan doontaan qodobo xasaasi ah waa maalinimo isniina taariikhdu ku beegan tahay 25 bisha October sanada 2022 fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gabaleelkana fura like saar share kula wadaag asxaabtaada aragtidaadana waa noo muhiim ah commentiga nagu reeb haddii aynu ku bilaabno warbixinta anaag idinkaga hayno farmaajo iyo Roble mucaaradka Soomaaliya ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan heshiiskii ay muqdisho ku gaareen madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble labada nin ayaa si weyn isugu fogaaday labadii bilood ee uu khilaafkooda banaanka yaalay waxaana ugu dambeyntii lagu guuleystay in la soo afjaro xiisadaas heshiis 6 qodob ah ayay kala saxiixdeen waxayna labada nin isla afgarteen in la dejiyo doorashada Soomaaliya si weyn dib ugu dhacday mucaaradka intii uu socday dagaalka Farmaajo iyo Roble dhextaal ayay u ahaayeen xiisada waxaana qaarkood loo arkayay inay xiisada sii hurinayaan ra'iisul wasaare Roble oo maalmihii dambe ku dhawaa mucaaradka ayaa qaatay heshiis u muuqday in isaga iyo Farmaajo isku garab dhaceen laakiin wax soo dhaweyn ah kama helin mucaaradka amba dhinaca midowga musharaxiinta oo si weyn uga hadlayay xaaladda intii uu dagaalka jiray madaxda maamul goboleedyada oo iyagana ka hadlay khilaafkii ka dhex jiray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaana ka hadlin heshiiskii labada nin la kala dhex dhigay waxa dadka intooda badan ay isweydiinayaan sababta ay heshiiskan uga gaabsadeen inay ka hadlaan mucaaradka oo ay ku diideen inay bogaadiyaan waxaana la rumaysan yahay inay sabab u tahay qodobada soo socda tuhun dib u dhac qaar ka tirsan xubnaha mucaaradka ayaa laga soo xigtay in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ay ku heshiiyeen in la daahiyo doorashada oo xawaaraha la damiyo si ay maalmo dheeri isaga sii joogaan xafiiska taas oo aysan faa'iido ugu jirin mucaaradka waxay badankood aaminsanayeen inuu Roble si weyn uga fogaaday Farmaajo una dadajin doono doorashada si meesha looga saaro kooxda uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin hadda waxa u sawiran aragti taas ka duwan oo in Roble la qanciyay inaysan wax dan ugu jirin dadajinta doorashada inkastoo qodobadii heshiiska Roble iyo Farmaajo ay ku jirtay in si degdeg loo qabto doorashada haddana xubnaha mucaaradka qaarkood waxay arintaasi u arkaan inay tahay jilliin labo rajo laga qabay Roble xubno ka mid midowga musharaxiinta ee mucaaradka ayaa filayay inuu Roble la noqon doono shirkad siyaasadeed ama inuu dhisi doono maadaama isaga oo Farmaajo kala fogaadeen laakiin dib isku soo laabashada labada nin ee dalka ugu sareeyay xilligan ayaa hoos u dhigtay rajada musharaxiinta badan oo naf ka raadinayay ra'iisul wasaare Roble saddex kiiska Igraan Tahliil xubno ka mid midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa laga soo xigtay in heshiiska Farmaajo iyo Roble uu inkaray xaqa Igraan Tahliil Faarax oo ahaa sababtii ay markii horeba u garab istaageen ra'iisul wasaaraha maadaama uu heshiiskaasna daciifiyay kiiska waxay sheegeen inaysan jirin sabab ay u taageeraan afar dib u soo laabashada Farmaajo mid ka mid qodobada loo malaynayo inay mucaaradka ugu dhinteen inay taageeraan heshiiska Farmaajo iyo Roble waa inay dareemayaan in heshiiskan uu dib u soo nooleynayo Farmaajo oo hadda heli kara garabka ra'iisul wasaare Roble ama ugu yaraan ka hortagi kara inuu Roble ka hor istaago faragelinta uu waqtiga dheer la damacsanaa doorashada dalka Soomaaliya